Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaad ku soo dhawaataan channelka Somali Share Education Network fadlan hadda taa qof nagu cusub subscribe-taada nagu caawi sidoo kalena gambalelka furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan soo dhigi doono videogan maanta waxaan ku qaadanaynaa qaabka aan ugu sameyn lahayn WhatsApp-ka backup-ka muhiim ayuu yahay marka waxaan kula wadaagayaa qaabka aad WhatsApp-kaaga backup ugu sameysan lahayd ugu horreyn waxaad tagaysaa WhatsApp-kaaga in taban markuu account ku sameysan yahay in kadib waxaad riixaysaa qaybtan sare waxaan halkan ka dooranaa setting markaan doorano meeshaan chattingska ayaad kala gelinay markii aad kala gelisid waxaad aadaysaa qaybta hoose meeshaan waxaan ka dooranaysaa chat backup ayaa leedahay chat backup markaad dhahdid hadda haddii aad fiirisid in account-kayga ama WhatsApp-kayga backup uu sameysan yahay طبعا haddii aan fiirino meeshaan in backup to the Google Drive waxaan oo dooran option-ka monthly aniga ayaan ka dhigtay haddii aad u baahatid inaad bedeshid halkan ayaad kala gelinaysaa waxaad awood u leedahay inaad ka dhigtid in weekly ama in daily ama only when I tap to the backup ama never ayaad ka dooran kartaa balse waxaa aan jeclaystay inaan iskaga dhaafo monthly aan iska kala gareeyo inkastoo ay fiican tahay weekly inaad ka dooratid waayo in weeklyga wuxuu ku fiican yahay waxay tahay in datadaada ama xogta la backup gareynayo waxay noqonaysaa mid xoogaa yar in ay ka yar tahay the monthly so waxaan kula tali lahaa inaad midkaad jeceshahay iska dooratid in sidoo kale meeshaan ay ku qoran tahay Google account waxaa qasab kuuga halkan ila Google account-ka aad rabtid in backup lagugu sameeyo hadeetan saan arkeyno in account badan ayaan ku isticmaalay ama ku save gareysan in balse waxa aan ka isticmaalaa waxay tahay account-kan sidoo kale meeshaan hoose ay ku qoran tahay backup over waxay u taagan tahay in goormay backup sameyn doonaa in internetka markuu haysto haddii aan halkan hadeertaad fiirisid waxaa ku qoran in wifi only طبعا مرة markii oo in mobilkeedu ku xirmo wifi automatically wuxuu isku dayayaa inuu backup raadiyo in marka hadda in data markay tahayna waxa backup aadan datada ugu dhigin waxay tahay waxa dhici karto datadaada aad ka warhaynin automatically inuu backup isku diro marka datadana sidaas ay kaaga dhamaato marka hadda jeer waxa fiican backup-ka inaad in wifi-ga aad dooratid so sidaa markaa ka dhigatid in waqtiga aad halkan ka dhigatay markii la gaaraba automatically backup ayuu sameynayaa balse waxaa qasab ah in saddexdan option inaad buuxisid waa ugu horreyn inaad xadidid in backup-ka waqtiga la sameey lahaa ama maalinla ama isbuuca ama bil haddii aad aadidna in mar alla markii aan soo gala ayaan backup sameysanayaa aday kugu xiran tahay sidoo kale waa inaa account ku khaasa ugu talgashay backup lagu sameeyo sidoo kale waqtiga backup la sameynayo ma in datadaada ayaa la isticmaalaa ama in wifi ayaan isticmaalaynaa sidoo kale meesha hoose waxaad arkaysaa include videos طبعا backup-ka badanaa in markii la sameynayo video kuma jiro waayo videoga xajmigiisa aad ayuu u weyn yahay marka badanaa waxaa fiican inaad tigta ka qaadid waayo waxaa dhacayso in data badan ama waqti badan inuu kaa qaato in si lagu backup gareeyo hadeertaan haddii aan u baahannahay inaan backup aan sameyno saad arkaysid xagga wuxuu kusoo qoray in waqtiga ugu dambeysay aan backup sameyn waxay ahayd in 16 Mars in 7 saac oo 10 dhiman size-ka la backup gareyna wuxuu ahaa 329 MB hadda haddii aan u baahanahay inaan backup sameeyo kaliya waxaan lehnahay meeshaan backup ay ku qoran tahay aan kala gareynaynaa backup markaad kala gareysid wuxuu isku dayaa inuu jig gareeyo ama oo fiiriyo datada ku saaran kuwii hore backup-ka aad sameysmay kuwa cusub ayuu hal mar in review ama eegis ayuu ku sameeyaa kadib wuxuu automatically bilaaban doonaa backup-kaaga so waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen videogeena halkan ayuu ku eg yahay waadna ku mahadsantahay daawashadaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu